السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي كلنتي وعن ميل الدنيا ذاك جوكتان كسود هذا برنامج كيني عيارها مانتا كليان إمبامبي أو سبب ونخن كره محمد صلاح إن وكتجو ليفربول قاب نوعيه جلسي أو قراعد ريال مدريد إسكنا حاضر سيفينال كجامبيون ليغا مان ستة أي بلانستي زيداني أو قعنتا كتاجي ميو تجي ريال ميسه جلسي فيس مان سيتي waqtiga la ciyaari doono finaalka Champions League meel ku qoro taageerayaasha Real Madrid oo si weyn uga xanaaqay ficil uu Eden Hazard sameeyay kadib kulankii semifinaalka laba koox oo Premier League ah oo iskugu soo hari doona finaalka Champions League imise jeer oo hore ayay u dhacday warbixin shan sabab oo ay Man City markii ugu horeysay ee taariikhdeeda ugu guuleysan doonto Champions League xil ciyaareedkan Real Madrid nasiib ayay u lahayd in aan 5 gool iyo 6 gool laga dhalin kulankii Chelsea UEFA oo soo saartay shaxda ugu fiican toddobaadka Champions League iyo qodobo kale aan ku soo qaadan doono haddii asxaabay waqtigeena saamaxo bilaabnay asxaabay Kylian Mbappe oo sabab u noqon kara in uu Mohamed Salah ka tago Liverpool qaab noocee ah Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay Mohamed Salah u calaamadsatay bedelka Kylian Mbappe hadduu xidiga uu ku fashilmo in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda xagaaga Salah ayaa mar kale muujiyay xil ciyaareedkan in uu soo bandhigi karo qaab ciyaareed fiican kadib markii uu dhaliyay 29 gool 45 kulan oo uu u ciyaaray tartamada oo dhan xidiga Mohamed Salah ayaa ah xidiga ugu goolasha badan Liverpool xil ciyaareedkan waxana uu tartamada gool dhalinta horyaalka Premier League wargeyska Le Prince ayaa sheegaya in ay kooxda PSG isku diyaarinayso in ay banka u jabiso saxiixa xidiga Mohamed Salah si ay badal uga dhigaan xidiga Kylian Mbappe oo uu shaki ku jiro mustaqbalkiisa Mohamed Salah ayaa Liverpool kula jira heshiis ilaa xagaaga 2023 waxaana lala xiriirinayaa in uu isaga tagayo kooxda mustaqbalka dhow ee soo socda Allah araan ooye daaqadaha iyo xira araan ooye albaabada iyo xira ولا عنادي ولا عديبيه لعمبارستي عدعدكا ريال مدريد كوحدة جلسي ايا قراعد ريال مدريد اسكنح ادرس الفينال كترتن كجامبيون ليغا ايغو بالانسدي كوحدة مانشستر سيتي خيبتي هوري كلنكا ايا كو بلودي سي دردر iyada oo kooxda Chelsea ciyaarayso weeraro orod ah halka ay Real Madrid maamulayso ciyaarta hadii ay noqoto dhanka kubadda haysashada laakiin Chelsea ayaa halka weerarka ka halis badnayd kooxda Real Madrid kuwaas oo aan in badan gaarin goolka kooxda Chelsea oo uu horjoogay difaac bir ah Chelsea ayaa daqiiqadii 18 ba dhalisay gool waxaana u dhaliyay xidiga Timo Werner laakiin goolkaas ayaa la diiday sabab la xiriira offside uu ku jiray laakiin Chelsea ayaa gool cad ah heshay daqiiqadii 28 waxaana mar kale shabaqa soo taabtay xidiga Timo Werner kaas oo hogaanka u dhiibay kooxdiisa kana dhigay 1-0 Real Madrid ayaa sii wadatay maamulista ciyaarta xilli ay Chelsea si fiican u difaacanaysay dhanka kalena qaadaysay weeraro rogaal celis ah Karim Benzema ayaa ku dhawaaday in uu gool u dhaliyo kooxdiisa kadib madax cajiib ah oo uu helay kubad laakiin goolhayaha Chelsea ayaa si fiican u difaacday kubadda una diiday in ay shabaqa gasho kubaddu waxa sidaas ku dhamaaday qaybtii hore ee ciyaarta oo Chelsea ahayd kooxda hogaaminaysa natiijada kulanka laakiin Real Madrid ayay ahayd kooxda maamulaysa ciyaarta qaybtii dambe kooxda Real Madrid ayaa ka go'an tahay in ay dhaliso gool barbaraha ah ayaa si dardar leh u bilowday qaybtii dambe ee ciyaarta ayaga oo doonaya in ay ku soo laabtaan ciyaarta laakiin Chelsea ayaa si fiican u difaacatay iyaga oo sidoo kale sii watay qaadista weerarka rogaal celiska ah waliba dhowr mar ku halis galiyay goolka kooxda Real Madrid xilli Real Madrid ay raadinaysay goolka barbaraha ayaa Blues weerar rogaal celis ah waxaana ay daqiiqadii 85 ku dhaliyeen gool labaad ee ciyaarta iyaga oo u dhaliyay xidiga Mason Mount kaas oo ciyaarta ka dhigay 2-0 waxa sidaas ku soo dhamaaday ciyaarta oo ay Chelsea sida isaga xaadirisay finaalka tartanka Champions League xil ciyaareedkan waliba balansatay kooxda Man City Chelsea
waxaa si rasmi ah loo ogaaday kooxaha isaga hor iman doona fiinaalka tartanka Champions League xilli ciyaareedkan, kaas oo iyaga isaga hor iman doona laba koox oo Premier League ah. Man City ayaa markii ugu horeysay iska xaadirisay fiinaalka tartanka Champions League kadib markii ay garaacday kooxda PSG laba kulan oo ku dhamaaday 4-1 natiijada labada kulan. dhanka kale kooxda Chelsea ayaa iska xaadirisay fiinaalka Champions League markii saddexaad ee taariikhdooda kadib markii ay 3-1 ku garaaceen kooxda Real Madrid natiijada labada kulan. sidaa darteed labada kooxood ee Premier League ayaa isaga hor iman doona fiinaalka tartanka Champions League xilli ciyaareedkan. kulanka dhici doona garoonka Outdoor Olympic Stadium ee ku yaala caasimadda dalka Turkiga ee Istanbul. fiinaalka ayaa dhici doona 29 bishan haatan lagu jiro ee May, weliba maalin ku beegan Sabti, iyada oo labada kooxood ku kala calaf qaadi doona iyada oo ciyaarta soo gali doona 10kii habeenimo waqtiga Soomaaliya. akhyaara intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii maanta ee ciyaaraha. waad ku mahadsantihiin la socodkeena iyo daawashadiina. مع السلامة.